warjaadku waxuu ka mid yahay waxyaabaha axadka maskaxdiisa wax ka bedela oo axadka dadnimadiisa suuliya oo axadka dhaqaalihiisa tirtira ilaaba la arkayba rag ilmay dhaleen rahanjaad u dhigtay axadka caqligiisa miyuu joogaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa odhanaya xadiiskana muslim oo warinayo kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraam war wax walba oo lagu sarqaamo waa khamri wax walba oo lagu marqaamo waa xaaraam sidaa waxaa odhanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam haye axadka qaad cunaya ee maskaxdiisoo dhanba qaad siiyey war axadkaa miyuu qiime iyo wanaag leeyahay war ragow allah aan ka boqno tabaaraka wa tacaala kuwiinan imaqlayow ogaadase inuu qaadku dhaawacan yahay maskaxda dhaawacayo oo dhaqaalaha dhaawacayo oo qofka dadnimadiisa dhaawacayo ilaa allah uu yidhi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin wa kaana shaydaanu lirabbi kafuura haye ilaa lacagtaadii xalaasha ahayd baad ku galatay waxaad arkaysaa in $10 ama 300 kun oo shilin Soomaaliya ama 400 kun laga bixinayo waa waxaan qiimo ku dhisnayn oo haddana caloosha aan buuxin oo gaarta kaa tirin ilmahaagina ay ka baahan yihiin xaaskaagina lagaba yaababa inay caawa daba wax ku jirta ay leedahay ilmahaagiiba caawa waxa wasiya laayahay aduguna waxaaba laga yaabaa $10 ama $15 inaad ka bixido wax yar aan qiimo ku dhisnayn haddana aakhira ciqaab kusoo jiida wuxuu allah oranaya tabaaraka wa tacaala ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin war kuwa mubadiriinta la yidhaah waa kuwa xoolaha ku ciyaaraya oo shirinka xalaasha xaaran ku gadanaya shaydaankay la yihiin walaalo shaydaankay qaraaba la yihiin buu allah oranaya tabaaraka wa tacaala allana maxuu yidhi wa kaana shaydaanu lirabbi kafuura shaydaankuna alla buu ku gaaloobay ku kufriyey war axad walbow iska ilaali maandooriyaha ilaa waxau dhaawacaya dadnimadaada iyo qiimahaaga xadiiskii waxaa tilmaamaya sidoo kale muqiira oo saxiix ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi wa kariha lakum waxaa laydin nacaya qiila wa qaala wa kasratu su'aali wa idaacatu maali maalka oo la dayaco waa waxaa laydin diidayo war waxaas idinma wanaagsan xoolihiinna xalaasha inaad qaad ka bixidaan idinma ficna ilaa xoolaha ilmaa xaq u ku leh oo ilaahay baa ku siiye waa lagu weydiin tabaaraka wa tacaala ilmaha kuu joogana rabbi waxba kaa su'aali ilaa xaq bay kugu leeyihiin iyaguna in mataqaanaa loo walaaqo soor loo walaaqo aduguna aad $10 aad ku cunto qaad ku cunto waa xaaraam haye war ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala oo aayaadka rabbi ilaaliya rabbi tabaaraka wa tacaalana waxau tilmaamayaa axadka lacag ou leeyahay lacag xalaal ou leeyahay ku ciyaara inuu ka mid yahay mubadiriinta rabbina ou odhanaya ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaadiin war mubadiriintu waxay walaala yihiin shaydaanka waa kuwa xoolaha ku tumanaya isaga ciyaaraya waxaa lagu gadayaa qaad oo wax qiima oo aan lahayn haddana ciqaab iyo halaag rabbi ku sugan yahaba ileen isaga laftigiisaba ah maandooriye ah kullu muskirin xaraamun wax walba oo lagu sarqaamana waa xaaraam war kuwa xoolahooda ku gadaya ee ummadda ka sii gadaya oo odhanayana qaadku faa'iidow noo yahay oo lacagta innaga iska leh